waxay u baahan tahay xaaskaaga guriga marka aad joogtid hadallo wanaagsan. adiga marka aad bannaanka joogtid dadka waxaad ula dhaqantaa sida ugu wanaagsan ilaa dadku ku yiraahdaan sida wanaagsan ee aad ula dhaqmayso darteed oo aad u ixtiraamayso waxaa tahay malag. maxay tahay sababta marka aad guriga timaado aad ula dhaqmayso xaaskaaga aad iskugu bedelayso cifriid yacni shaydaan? taasi miyaysan ahayn munaafiqnimo? kan la jecel yahayow xaaskaaga waxay la eedaran tahay niyad jab. ka dharji ereye ka buuxa jacayl oo qurux badan. haddii ay kaa fog tahayna ugu dir taleefanka ereye jacayl oo xul ah. waxaa ku tiraahdaa xaaskayga waan ku jeclahay. kelimada waan ku jeclahay waa kelimada ugu saameynta badan insaanka. kelimad la miisaama adduunyada iyo waxa ka jira. waa kelimad macaan maqashii iyada. cabira dareenadiinna. waxaad ku tiraahdaa xaaskayga waxaad tahay dowladda qoyskayga, waddankayga, waxaad tahay qoraxdeyda, dayaxayga, subaxayga, galabtayda, habeenkayga iyo maalinteydaba. waxaad tahay biyahayga, hawadeeda, waxaad tahay neefta aan neefsado, waxaad tahay nuurka indhahayga. walaalkaygow haa iyada sidaas ku dheh, taas way u baahan tahay. kan la jecel yahayow la haasaaw, isku jilci maqashii erayadan. kelimada wanaagsan waa sadaqo. hadalka wanaagsanna wuxuu dhisaa qalbiyada jabay. furayaasha dumarka waxuunbaa gara kara nin leh dareen xasaasiya. ha xumaan weligaa haweenka. nabiga sallallahu calayhi wasallam markuu mithaalka bixinaya haweenka wuxuu ku mithaaliyey dhalada oo kale, wuxuuna yidhi rifqan bilqawaariir, yacni u naxariista kuwa jilicsan, yacni dumarka. haweenku waa insaan daciif ah, waxayna u baahan tahay naxariis, waxayna u baahan tahay daryeel. haweenku waxay jecel yihiin daneen iyo qadarin. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ula dhaqma haweenka si wanaagsan. la dhaqanka wanaagsan waxaa tilmaam u ah jacaylka iyo ixtiraamka. inta badan haweenka leh tilmaamahan jacaylka iyo ixtiraamka. mutanabi wuxuu yidhi dumarkii hadday ahaan lahaayeen sideenna oo kale dumarka waa laga fadili lahaa ragga. axbaabi daneeya xaasaskiinna. haweeneydu waxay bahay u qabtaa jacayl iyo in shucuurteeda la dhowro. culimmadu waxay yidhaahdaan qancinta shucuurtu waxay noqdaan erayo iyo ficilo sida taabasho, salaaxid, inaad gacantaada saarto garbaheeda, madaxeeda. waxyaabahan waxay raad ku reebaan shucuurta haweeneyda. waxaan jeclaystaa ninka markuu guriga soo galayo oo ay xaaskiisa ka furto albaabka inuu ka dhoonkado indhaheeda dhexdooda. kana jecel yahayow haddii ay kaa weydo xaaskaaga kalgacayl iyo xanaanayn weydiisan kartaa cid kale iyadoo ay raadinaysa baahideeda. xaaskaaga waxaa dhici karta inay ku dhacdo ugaarsi dad kale adigana sabab u ah. ha dulmin xaaskaaga. way isbedeli kartaa jacaylka ninka iyo naagtiisa. cusboonaysiiya jacaylkiina, maxaa yeelay jacaylku muddo kadib wuu tegayaa. jacaylku wuxuu u baahan yahay in la cusboonaysiiyo. nabi sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid la fadhiista asxaabtiisa, wuxuuna ugu sheekayn jiray xaaskiisa Khadiija, wuxuuna dhihi jiray aniga waxaa laygu esaaqay jacaylkeeda. nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid ka hormariyay koob biyo ah xaaskiisa Caaisha si ay u cabto. kadib ayuu nabigu ka cabay, wuxuuna raadinayay meesha ay afkeeda saartay. nabigu wuxuu afka saaray meesha ay afkeeda saartay si uu ugu farxiyo. nabigu wuxuu yidhi waxaa mahad iska leh allihii ugu irsaaqay jacaylka Caaisha. xaaska in loo dhaqmo si wanaagsan wallaahi waa shay aad u wanaagsan. dadka qofka kugu dhowaa xaaskaaga, cidaan adiga ahaynna ma haysato. waa hooyada carruurtaada, waxay ku dhaqdaa dharkaaga, waxay ku karisaa cuntadaada, waa lamaanahaaga nolosha, waxaynu kula wadaagtay nolosha. ixsaanka aad u samayso xaaskaaga ma aha inaadan dhibin. ixsaanku waa inaad u dulqaadato dhibkeeda. ogow nin yahow raganimadu waxaa ka mid ah inuusan ninka qaadan wax ka mid ah xoolaha xaaskiisa inay u ogolaato maahane. maalka iyadaa leh, adiga uga ixsaan fal bil wanaagsan, waxbana ha ka baqiylin. raganimadu waxay ku jirtaa inuu ninka isaga biilka baxsho, yacni wax lacaga haba yaraatay ha ka qaadan xaaskaaga inay iyada ogolaato maahane. ogow walaalkayga xaaskaaga inay jeceshahay inay kala sheekaysato dhammaan arrimaheeda iyo arrimaheeda kala duwan. dhegahaaga u raaraci, indhahaagana ku eeg iyada. hana ku ceebin ciladaha qaraabadeeda, mas-uuliyadna ha saarin. wallaahi cadiim, guri laga buuxiyo jacaylka waa guri aad u qurux badan. kani waa guri wanaagsan. guriga wanaagsan kama jirto hadal xun gebi ahaanba, kamana jirto xaalad dagaal, kama jirto abaab in layska xirto iyo in abaabka la jajabiyoba. ma ahan buuq iyo caay. guri jacaylka buuxa waa guri aad u wanaagsan oo ay ka jirta naxariis. waa guri ay ka jirta nabadgelyo iyo isu dhoola caddayn. nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid markuu soo geliyo guriga dhoola caddeeya oo bashaasha. rasuulka alleh waxaa idinkugu sugan ku dayasho wanaagsan. gabagabadii waxay farxad gelinayo inaan dhaho laba kastoo isqaba. waxaan weydiisanayaa allaha qaadirka ah inuu farxad idinkaga dhiga sariirtiinna, kulakiinna ka dhiga mid kheyr leh, dhexdiinna ka qadaro owlaad saalixa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.